wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Yuusuf Axmed Faarax oo maanta warbaahinta qaranka Soomaaliland ugu waramayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin mashaariicda horumarineed ee xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay gobolka Sool diiwaangelintii laga sameeyay gobolada bariga Soomaaliland ee sida habsamida ah ku soo gabagabowday wada hadalka xukuumadda Soomaaliland iyo Khaatumo safarkii taariikhiga ahaa ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland ku tagay gobolada bariga Soomaaliland isla markaasina uu hoyday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo sidoo kale dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyay laamaha cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa war saxaafadeedan doonayo inaan ku yar bidhaamiyo isbedel aad u weyn oo cid waliba dareentay oo ka dhacay bariga Soomaaliland marka ugu horeysa waxaan rabaa Ilaahay baa mahad leh balorta inaan mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xilkan ii magacaabay waxaan rabaa inaan yara bayaaniyo qodob aad iyo aad ugu soo noqnoqda wadankeena oo ah ictiraafka anigu waxaan qabaa ictiraafka in loo maro wadooyinkan soo socda ictiraafka ugu fiican waxa loo maraa in la helo cadaalad baahsan oo loo siman yahay waxyaalahan hoos ku qaran oo dhan waxa loo sinaanayaa shaqada teeda sare iyo teeda hoose waxa loo sinaanayaa scholarshipska iyo waxbarashada xisbiyada hoggaamada ciidamada ilaalada madaxtooyada waxqabadka hay'adaha UN-ka baarlamaanka labada aqal ama talada guud ee dalka oo dhan haddii intaas aynu si cadaalad loogu siman yahay oo ay dareemaan beeluhu anigu waxaan qabaa ictiraaf inoo dhiman oo aynu doonaynaa ma jirto magaaladan Laascaanood la yiraahdo waxa loo qaatay magaalo aan madaxweynayaashaba ku salbanayn oo aan xitaa madaxweyne oo heen karin oo daqiiqada joogi karo waxa dhacday madaxweynaheenu intuu yimi oo dhex maray oo mashaariic ka furay ayuu haddana seexday oo aroortii soo kacay oo haddana mashaariic kale dhagax dhigay oo arrin cusub arrin aad u cusub oo waliba taariikhda gelaysa maxaa keenay waa su'aal waxa dhacday Khaatumo oo in badan maxaan ku raahday ay Soomaaliland iska soo horjeedeen ayaa waxay ogolaatay in dawladda Soomaaliland la hadasho wada hadal la furto iyaduna waa dhacdo weyn maxaa keenay waxa kale oo dhacday in diiwaangelintii laga sameeyay gobolada bariga waliba gobolka Sool 175 goobood baa la yiraahdaa laga codeeyo 175 goobood way ka dhacday diiwaangelintu waxa keenay horumarka ay dawladda Soomaaliland ka hirgelisay gobolka Sool Maxamed Siciid Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaala TV qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.